بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وحلقة السدحات أو فرق السدحات موضوع بين منهج السلف والحزب السلفي. لودي حلقة هره وحن كقصوا هذا اللي ونقحني منهج السلف وحان قيحني مفهوم كحزبية يتحزبك، وحان كلا صارني بين المنهج والمنتمين إليه. منهجك يددك كعب ترصده أما الشيكته إني كلا دوانان كران. وحان صوت المعنى dadka manhajka ku abtirsada ama sheegta iyo mafaahiimtooda iyo qaabkay u fahmeen iyo qaabkay u tatbiiqinayaan iyo manhajku inuu kala duwanaan karo, wabitaali haddii iyaga wax laga sheego ama khalad laga sheego inaysan macnaheedu ahayn. waxaa kaleetoon soo sheegnay in aad sheegato salafi baan ahay aadan kaga badbaadaynin xisbinimada haddii aad dhaqankii taxasubka xisbiyada la timaado, inaynu magacu kaa badbaadin karin. waxaan soo sheegnay culimmadii oo ku tilmaamaya qoladaas salafinimada isku uruursataay oo wixii iyaga khilaafsan markaasi go-aan gooniya ka qaataay inay sida axsaabtoo kale xisbi yihiin. kelimadaasaan waxyar tacliiqinayaa. waxaa laga yaabaa hadalkii ibnu cuthaymiin aan ka soo guurinay caleyh raxmatullaahi iyo culimmada kale oo ay yidhaahdeen waxaa jira xisbi la yidhaahdo salafiyiin, inay wadaadada qaarkood u fasiraan oo yidhaahdaan waxaa laga wadaa ururada maamulka iyo tandiimka leh ee haddana salafinimada sheegta. kuwaasaa laga wadaaya annaga hadalku naguma dhacayo. saasaa laga yaabaa inay hadalka u leexiyaan, laakiin waxaad diidaysaa culimmadu markay magacaasi dadka sheegta ka hadlayaan ururada kale ee salafiga ah magacyadoodana way sheegaan, gooni bay u sheegaan. ansaaru sunnay sheegayaan, heel bay sheegayaan, kadib salafiyuun bay dhahayaan. marka ururada la yaqaana magacyay leeyihin, laakiin magacan assalafiyuun qolaa loo yaqaanaa oo ku cambaxday manhajka maaha, waa magaca. midda labaad, hadalkii sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah aan ka soo guurina way ku caddayd in magacaas ay sheegtaan oo magacooda yahay. وكان سو قورني شيخ يقول والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح، لا التحزب إلى من يسمى الحزب السلفيون، إلى من يسمى السلفيون. ومقع مركا أي قول الشيخ. طيب، فهناك طريقة السلف وهناك حزب يسمى السلفيون. magacaasa lagu magacaabaa oo la dhahaa. sharxul arbaciinka ayuu sheekhu sidaa ku leeyahay, waana soo guurina xalay. marka wuxuu ka hadlaya waa qolo magacaa sheegata inay maamul leeyihiinna laasimaasaan sheegnay, ama hu qarsoonaado ama yayna lahaaninba. qodobka baraarujin buu mudan yahay. qodobka labaad, markaan soo maraynay xadiidkii saxiix bukhaari ku yimid, soo sheegnay nebiga sal alla alay wasalam xaasaskiisuna laba xisbi ahaayeen. xadiidkii sheegayey waan idin dhihi jiray waxaa la dhihi doonaa nebiga xaasaskiisii buu ururo ka dhigay. ninbaa wuxuu ii soo diray maanta qoraal oo wadaad qoray oo uu leeyahay waxaa ka laasimaya hadalka noocaas التجويز للنساء بأن يؤسسن حزبا برئاسة واحدة منهن.
لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمكم كن حزبين مثل الأحزاب المعاصرة. وأوركان إدين شيء لفتي سوء ميل أن هذا الكلوب ودين بيقاضيه سومالي دو حيل هذا مركي جيل لوهيس بيقريو وهيستا مركا حزب النبي صلى الله عليه وسلم حاسسكي سلبه حزبي يعني حديث كبركو الشيغيو waxaa loo soo qaadanayaa kelimada xisbi in loo isticmaali karo meel aan maamulka jirin dad ra'yi isku raacay ama isku mowqif ah sharciguna uu isticmaalay xisbi in loo isticmaalay inta way inta laga daliishanayo laakiin cidina ma dhihin axsaabta maanta jirta bay dumarkii nabigu la mid ahaayeen wadaadku marka halkaas uu la aadi oo lawaasim wuxuu ka dhalinayaa aan loo wadaninba ama loo daliishaninba marka waxaa fiicnaan lahayd in markaad wax niqaashayso aad jawharka hadalka ka aadso laakiin kelimo yar ama meer yani carabku ku sibqaday inta lala cararo ayaa waxaa laga dhigay muxaadaraad laga dhigay arrinkaasi marka waxa weeye yani niqaashka cilmiga kuma fiicna ruuxuna wuxuusan iltizaamin laguma laazimiyo ayib waxaa muxaadaradeenu maanta ay tahay markaan tacliiqa yar ka soo baxno caawa qolyahan haddaan sheegayno ama salafiyaha sheegtaan ama sida dadka qaarkood la yidhahdo jaamiyaha la dhaho ama madkhaliyaha la dhaho ama magacay doonaya la yidhaahdo bilowgoodii ilaan kelimadii hore ee hadalkuba ka kacay waxaan nidhi xarbul khaliij bay bilowdeen laba sheekh baana bilaabay kadib waxaa la yidhi say ku bilowday manhajkii salafku ilaa waqtigii nebigu soo taxnaay oo culimmadii waaweynee ka horraysay baa taqriirin jirtay marka maxaa bilowday xarbul khaliij labadan wadaadse maxay bilaabeen labadan sheekh waxa ka dhashaysa muxuu ahaa oo ka duwanaa wixii horay u jiray qodobkaasi waa qodobkan caawa gudagelayna insha allahu tacaala axdaastan markaan ka sheekaynayo in badanoo ka mida goobjoog baanu ahaa waynaga duldhacaysay shaahidu cayaan jaamacaddaan dhiganaynay marka waxyaalahan dhacayaan sacuudigaan joognay markay bilowdeen bay ahayd niqaashoodka intooda badan waan joognay wixii laysku radinaya waan joognay mawaaqiifta inta badan waan joognay goobjoog baan ka ahayd waxaad goobjoog ka ahayd iyo waxaad meel ka akhridayna uu kala duwan yahay marka axdaastan aan hadda ka sheekaynayo bilowgeedii hore intaan jaamacadda joognay bay ahayd 92dii 93dii 91gii 90kii waa muddadan jaamacadda dhiganaynay wax walba sabab buu leeyahay sababta arrintani ku timid waxay ahayd dagaalkii khaliijka gaar ahaan